آخر إني جرت إن لقوا حسوسيو إنه قبر كادم بي إن لقوا حسوسيو وأرن لقى مارمان وكل جنا نوض بهنا هداد بدين لهيدين بو نبي قول معن دميها وركي سي شيء كديسة قصل كأن نقول أركا يبو نبي قول عليه الصلاة والسلام ما ذا لاشان ما نتقصشان واتكم مشغول لهيدين بو نبي قول عليه الصلاة والسلام واجي بريء يقبل كده عبا مالين كستي وحو بني آدم كوسي دوانيا وقبر قويان قبر قونا مركا أوحلا يا وحلايا هاي أنا قريجي كليجا أيانا هاي أنا قريجي درحيجا وصاحبك هابانا هاي أنا قريجي مدوبابانا هاي waxaad iga shaqaysato un baad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer Madiino Ansaariya janaasadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyay eelka la dul dhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yiri istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al bu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya حتى سؤال قبرك اللي ويدين يا ابو النبي عليه الصلاه والسلام وسؤال قبرك ومحي وصدح ذا سؤال ودويان من ربك من نبيك ما دينك مر لي مركا قفك انكو ان دغنا قبرك ان كايمنو كودن بيه كسو دقاقه شنقديس الله مقاشين ابو النبي عليه الصلاه والسلام لو ملك با ايمان دونتا الفتانان دنا way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaan wali yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyada adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa la sugi doonaa mar rabbuka ayaa ku rabbaynayay ayaa ku quudinayay ayaa ku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay ma diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nabiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladhina aamanu bilqawli thabit fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay tabaaraka wa ta'ala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshin doono walaalayaal ilaahayna ha nagu sugo allah ha nagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa ku muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jirhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacada salaada iyo manfacada thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhirata lagu tusin doona shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayyabaat wax ka qarsoomay buu noqon doona shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doona wax hortaada imaadod aragto ayuu noqon doona maanta adduunyada inoo muuqata aakhira inoo ma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fi ghaflatin min hada فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أورن دونا داهي حجاب أيا كاسرنا نولشن لكن ما أنت داهي حجابك كاسرنا وان كاقادني أرجعوا بوا حديد بقفك اللي أورن دونا وأدوية دي بان نقول دونتا مش غيب بين نقولي دونتا عيال كيسية دوبر كيسية داري كيسية أدوية دي سي يا لعكتيسي ولا قريني دونا وحمرك واركي دونا عمل كي أدوية وصاقبتي هذو الشر أهانا وحوارك دونا عقوبة دي سي عردي سي هذو عقوبة دي إلهي عردي بواركيا هذو خير أهانا ثوابك أجرك خيرك حسناتك بواركيا الدنيا دي وحي نقول إسا وح كاقر صومي آخرة دي نوحكم مقاتين نقول دون تمركز بركة إلهي تبارك وتعالى أدونك أنت أن جوغن الله ما أركي كرايو لكن آياتك إلهي بالله أركيا ومن آياته الليل والنهار هبينكو آيات ويان آيات ومحي معنيه وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو مالنتو وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو قوغا إيا جلالك وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو نولشي جيرد وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو لبي يددك وعلامة جريتان كي إلهي لغو قرانايو فقرق يقيند وعلامة إلهي لغو قرانايو جريتان كيسا
caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahdaa maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culummadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oon ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan leetareedkii baan ku noolay leetareedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku aladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waladii yumiitunii ثuma yuxyiinii waa usuul aliimaan usuul alcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xagga ilaahay bay ka timaadaa dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa abqada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy ibnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaco yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy ibnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy ibnu abi aalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee
waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cadha ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso